kale ayuu sareeya gaasooda Yuusuf Raage nasiib u yeeshay in uu hogaamiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana maalintii la soo magacaabay ay ahayd maalin ay dhammaan ku wada farxeen sida ay sheegeen ama dareenkooda laga dheehan karay dhanka baraha bulshada soo laabashada taliyaha ee cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed munaasabadan waa munaasabad weyn oo la soo qaban qaabiyay iyadoona ugu dambeyn hadda saacadihii ugu dambeeyay gudagalka munaasabada ay ka dhiman yihiin wax yar oo kooban waxaana goobjoog ka ahaan doono oo marqaati ka ahaan doono halkan ee munaasabada xil wareejinta ah Xamza Cabdi Barre oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya saadaasha wadaydu waa sulub hashaydiye sifkan ku mayrici jiriyo seeri iyo buure salaafkiyo dhukaankii madayn soorqaniyadiye saqda dhexe gunuun carriyada waygu seleshaay mase riibto geedaha hadda isabadu doogowde seetada birbaa looga dhigay suulashiis maraye seetada birbaa looga dhigay suulashiis maraye waxa seefta loo qaariyaa seeda igu taale aniguna sasaan ugama boqosunuya wabaaya